Assalamu alaikum, dear learners. For tomorrow's lesson, I may not be able to attend the class due to challenges that I have at home, and my fellow teachers not also feeling well. So, after we have discussed with some of the learners, we have agreed that we shall post the lessons on our WhatsApp group. For English lesson, we shall be having sentences. The first sentence is, please lend me your pen. haddii aan af Soomaali ku macneeyo, please fadlan lend me igu caawi your pen qalinkaaga. marka rabto inaad qof qalin weydiisto oo celiso ayaad sidaas maarta ku codsanaysaa. Number 2, Saciid insisted. Saciid wuxuu ku adkaystay on being able inuu awoodo to do inuu sameeyo all the things wax walbo. Number 3, you cannot endure uma dulqaadan kartid iyada complaining inay ka cabanayso ama ka calaacalayso all the day maalintii oo idil. You cannot endure uma dulqaadan kartid iyada complaining cabashadeeda mise calaacalkeeda all the day maalintii oo idil. The man ninka denies wuxuu inkiray stealing xaditaanka inuu xaday the money lacagta. The man ninka denies meeshas dhahaysi u qoran waa qalad, waa denies midka tan labaadka ayaa sax ah. The man ninka denies wuxuu inkiray stealing inuu xaday the money lacagta. China wadanka Shiinaha is the fastest growing economy. waa wadanka uu sida dhaqsiyaha ah uu dhaqaalihiis u korayo. Fastest waa dhaqsiyo, growing waa koritaan, economy waa dhaqaalo. Number 6, I waited waxaan ku sugay inay queue anigoo fail ku jiro for 4 hours muddo 4 saac because sababtoo I am waxaan aniga ahay such a big fan taageero sida u weyn of her iyada. waa such waa sida camal, big waa wax weyn, fan waa taageero. Number 7, she objected way diiday at first ugu horreyn but laakiin finally ugu dambeyntii concurred way ku raacday. Math. Number 8, math maadada mathematics is my favorite subject. waa maadadan ugu jeclahay but my brother walaalkii laakiinse really likes wuxuu si dhab ah u jecel yahay science maadada science-ka. Number 9, although maadaama studying English barashada Englishka seems ay u muuqato difficult mid adag, it is simpler way ku fududahay than you think sida adig u moodid. Number 10, don't leave ka tagin the restaurant maqaaxida ama hotelka ama baarka waxa dhan waa la restaurant until ilaa the dishes saxamada here ee halkan yaalo are washed laga dhaqo. Dishes marka saxan keli waa loo isticmaalaa, maacuuntana waa loo isticmaalaa. waxaan filayaa haddii inay fahanteen cashirkeena warkaasa insha allahu tacaala hala dadaalo hala akhristo. If you have any question about the lesson, you can ask me through a WhatsApp group ayaad iga soo weydiin kartaa. I wish you the best. Have a nice day.